السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. horta waan salaamayaa dhammaantiin meel kasta aad joogtiin adduunka. walaalayaal maanta waxaan arkay wax iga yaabiyey. waxaan arkay ninkii dhammaa ee mas-uulka ahaa ee la oran jiray cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka hadlaya gabdho reer caabud waaqa oo Soomaaliyeed oo ka danqaday dhibaatada gaartay reer SSC ama Khaatume State of Somalia siiba magaalada la yiraahdo Laascaanood od ogtihiin ciidan 33 sano la dhisay inta lagu soo hogaamiyay in dhulka la dhigay dhulka oo aan la dhaafin masaajid oo aan la dhaafin dugsi quraan oo aan la dhaafin iskuul oo aan la dhaafin guri isbitaalkii xataa la dumiyay oo dadka shacabka ahaa la qaxiyay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka aad xaq darro ku socoto diinta iyo ilaahay xaggiisa malaa'iga ku hiilinaya wiilal yaryar oo 30 mid gaari ku jirnin ay qalabka qaateen ay dhaheen dhimasho iyo geeri ma geeri ba geeri noo dhaanta ilaahay wuxuu qadaray in burca agteeda hadda la isku hor fadhiyo burca agteeda xaqi u hiiliyay meeshii marka ayagoo intaas waliba u dhig baxaya calanka buluuga oo diiday inay calanka la qaataan oo saa calankii aad mooday ayagu inuu hal mar ay soo wada dhasheen waa wadaninimada iyo dhaqanka lagu koriyay ba ah inay Soomaali yihiin inay yihiin calanka buluuga uu yahay calankoodii meeshii marka shacabka Soomaaliyeed loo gurman lahaa ee meesha ku dhibaataysan kuwii qaxay loo gurman lahaa sidii ay u soo noqon lahaayeen laga caawin lahaa dhisitaanka iyo soo noqoshada dadka guryahoodii dumeen ee meel ay fariistaan aan la arkinin meeshii laga caawin lahaa wixii ay ku sii teendooyin xataa loo dhiso si ay maaragtay bal intii wax loo habaynayo ama ay wax habaysanayaan ama ilaahay hay-ada adduunka uga soo dirayo caawiyo guryaha u toosiya teendooyin iyo raashin iyo biyo iyo xataa biyihii waa tii laga jaray meel walba waa tii lagala dagaal korontadii waa tii lagala dagaal meeshii marka shacabkii Soomaaliyeed loo gurman lahaa haddii la yiraahdo gabar baa halkaa lacag ka soo aruurisay gabdho kaleeto oo abdaaqa qabiil baa loogu waxaynaya loogu cayrinaya loogu geynaya halkaas maxaa aniga la iigu soo sheegay adigu maxaa tahay adigu ma jeebkayga hadda ka warhaysa anigu jeebkayga waxa aan dirayo iyo waxa aan samaynayo hadda 10 jeer aan lacag diray cidina ku sheegmayso cidina kala tashanayso anigu hadda hadii ay adiga wax kugu dhacaan oo aan arko inaad u baahan tahay waan ku soo gurmanaya walaalkeen Soomaali baa tahay ayaguna waa dad Soomaali waliba u dhig baxay calankii iyo dhulkii u dhig baxay diiday in calan kale laga taago meeshaas ma intaas xataa aad ka fikir weydin reer caabud waxaan leeyahay gobonimada waa idinku aqaani waayo hooyaday macaan bay idinka dhalatay aad baan idin jecelahay gobonimada gabaray dhaleen ama wiilay dhaleenna agtooda inuu ku baahanin waa la ogyahay aad baan idin jecelahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin jeclaado reer caabud maalintii hooyaday idinka dhalatay ayaan ilaahay ugu xamdi naqaan waayo hooyaday waxay nagu soo korisay Soomaalinimo maxaan ku iraahdaa inaad maartay Soomaali qofku doona ha ahaado hadduu baahi qabo caawi waxaan indhaha ku kala qaaday hooyaday oo qof kasta wax siinaysa abtiyaal gobonimada waa idinku ogaa cidnana ha kala tashanina maanta gabdhahaasi waxa ay sameeyeen kaligood inay ku koobnaadaan ma ahan because ayagu hadda waxay u soo direen waxay arkeen hooyooyinka Soomaaliyeed ee Laascaanood banaanka waran ilmahoodii oo banaanka waran xabad lala kor taagnaa ilaahay xabada haduu ka dulqaaday waxay tahay in maanta at least qalbiga loo dhiso oo la caawiyo dawlad haday tahay xasan sheekh haday tahay maanta aadam dida daabkeeda hay shacabka Laascaanood uu ku baahan yahay madaxweynahoodii baa tahay magacaaga meel kasta joogo madaxweynaha uu yahay dilada waa xasan sheekh maxamuud waxa weeyaan marka dadka saa u hadlaya cabdiraxmaan cabdishakuur dad badan oo ku jawaabay waan arkay
laakiin anigu tii iga guuxaysay baan kuu sheegaya. waxaan ogahay adiga iyo tolkaaguba dad xun inaynan ahayn, laakiin dhibaatada jirta ayaa waxay tahay meelaan boos kaaga banaanayn ayaad isku soo maqiiqday adoo ciil qabtid. ciilka aad qabtidna waa markii Farmaajo, waa wax la isku qarinaya ma jirto. hore wax walba waxay ku jiraan media. Farmaajo waa shaqsi, wuu joogay wuuna tegay, wuxuu ahaaba khayr iyo shar, wuxuu ahaaba wuu tegay. shacabka Soomaaliyeed adigu haddaad nin wanaagsan tahay maanta ma ahayn masabkaaga ma ahayn inaad ka hadasho reer Caabudwaaq. gabdhaha reer Caabudwaaq lacagta ay soo direen 62,000. ogow hadda raggii iyo lama gaarin. ogow reer miyigii lama gaarin iyo dadkii xoolaha lahaa. lama gaarin reer Gadiye, Buulaxaawo iyo gobolada Gedo. Gadaland lama gaarin weli. wax walba waxaa ka wanaagsan Soomaalinimada. marka adiga wax lagu soo sheegayo oo lagu leeyahay gabar Soomaaliyeed, hooyo Soomaaliyeed lacagtii biilkeeda in yaray ka jartay ay adiga kuu sheegaysa intaan baan ka jaray, waxaan u dirayaa reer Laascaanood. marka ay ku leedahay maxay tahay? ilaa lacagtana dowladima soo dhiibin, waxaa soo dhiibay shacab weeyaan. haye aniga maanta haddii gobolada wadanka gobol kamida dhibaato ka dhacdo oo wax loo aruurinayo, waa inaan ku daraa Soomaalinimada ay faraysa, islaamnimada ay faraysa, walaalnimadii wada dhalashada ay faraysa. maanta saad la socotid Beledweyne qarax weyn baa ka dhacay. gabdha isxilqaamaya, shacab baa isxilqaamaya. dowladdu waa inay gacan ka geysataa, shacabkuna waa inuu gacan ka geystaa. ma ahan markaas in adiga lagu soo maro lacagta ma haynaa. anigu waxaan hadda aan Beledweyne u diray ma adaan kula soo beeganaya. waxaa aqligu ha shaqeeyo, meesha aad ka hadlaysna waa lagula fahmaya. marka anigu taas kaaga jawaabi maa, dad baa kuu jawaabay aan gabanaynin. marka waxaan ku leeyahay nin waxaa tahay reer fiican ka dhashay, reer wanaagsan ka dhashay, ha isceebayn. ceeb weeyaan waxaas. ragga jooga meesha la yiraahdo Laascaanood oo lagu duqeynayo iyaga ilmahoodiiba, niman faqashiniya ku jira, niman habar gudiraha ku jira. wadanka waa la isla leeyahay, waa wadan Soomaaliyeed. cuqdada intaad iska saartay iyo Farmaajo waasaa igu sameeyay. Farmaajo ma joogo hadda, Maxamed Siyaad Barre waa dhintay. marka ilaahay xaqa ha ku tusiyo adeer. wax kaloo kuu sheegi karaa ma jirto. reer maxaan ku dhahaa Caabudwaaqna waxaan leeyahay aad iyo aad baad u salaamantihiin. waxaad samayseen wax Soomaaliya oo dhan laga sugayo. Caabudwaaq kaliya inay ku ekaato ma aha. hadda waad ogtihiin magaalada la yiraahdo Garowe waa tii laga aruurinayay, wax walba laga qaaday, xataa raashinkii la geynayay wax lala hara aysan jirinin, dhiiggii la geynayay, naftii la geynayay. markaad ogtihiin waxaad iska dhigaysaa nin xigsanaya dadkii dulmiga waday baad iska dhigaysaa. taariikh baa isqoraysa. waxaanayna meediyahay kuu galeen. qofka markaad duubaysay dad inay kula joogaan baa fiicneed. horta kaa safir oo ku yiraahdo war maxaad waxaan ka wadaa, waxani wax wanaagsan ma aha. taariikhday kuu gelisa, ilmahaagaa dhaxlaya waxaan. marka qofku markuu hadlayo waa inuu yahay inuu ku hadlaa wax aan beri ka maalin ka daba imaanaynin, soo maaha. marka qofaad matashid oo gaara, kollay qabiilkaas habargidin ma matashid. waxaadan u matalayna waxa weeyaan qofku markuu wax wanaagsan samaynayo, yes wiilkaas yuu kasoo jeedaa baa la leeyahay. markuusa wax aan sax ahayn samaynayo cidna ma matashid, adaa ismatashid. marka khayr baan idiin rajaynayaa. aad iyo aad iyo aad iyo aad baan uga carooday markaan maqlay hadalka noocaas. balse ilaahay waxaan ugu mahadinayaa rag iyo dumar qabiil kasta leh, oo qabiil kasta leh, xataa qabiilka uu kasoo jeeda ah ayaa ka jawaabay oo yiri war waxaas wax adiga kugu habboon ma aha inaad ka hadashidna ma aha. qof jeebkiisa wuxuu ka dhiibayay gabdho ayagu isu soo xilsaaray oo u geynaya inaad qabiil ahaan u ceersatid. waa khalad. calaashaan Farmaajo ayay isku famil yihiin. war Farmaajo waa tegay. Farmaajona anagaa jecel oo Soomaaliya oo dhan baa jecel oo qof kastaa jecel. marka ha lagugu dhaarto hadalka kaas soo yeerin Cabdishakuurow waa hadal aan wanaagsanayn, kugumana raacsanin. qof kugu raacsan oo Soomaaliya xalaalan wallahi inuusan jirinin. khayr baan idiin rajaynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.